بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل وعن وناكسن داوديال صاحبيال meel walba aad joogtaan kuna soo dhawaada warar warbixinaya dhacdooyinkii ugu dambeeyay arrimaha Soomaalida iyo caalamka qodobada aanu qaybtan ku soo qaadi doono haddii alla uu qadaro waxa kamid ah wararkii ugu dambeeyay macuusuliyada beesha xawaadlo oo howlgalo culus ka wado inta u dhaxayso degmooyinka Aadan Yabaal iyo Boqorkori iyo macuusuliyada beesha xawaadlo oo kaabiga ku hayso degmada Aadan Yabaal waxaa la wadaagi doonaa faahfaahin macluumaad ku aadan duqeymo culus oo laga fuliyay degmada Aadan Yabaal iyo howlgalada culus ay wadaan ciidamada huwanta iskaashanaya militariga iyo macuusuliyada beesha xawaadle saacadii la soo dhaafay dagaaladii dhacay jabka culus ee kooxda shabaab lagu gaarsiiyay iyo warar dheeri warintaasi ku aadan ayaynu idiin soo gudbin doonaa qodobada kale wararkeena ku daawo doontaan haddii alla uu qadaro waxaa kamid ah wararkii macluumaadkii ugu dambeeyay magaalada Gaalkacyo oo qarka u saaran dagaal dhexmara ciidamada Puntland iyo kuwa Asad Diyaano haddaba maxaa maanta ka soo cusboonaaday xaalka magaalada Gaalkacyo Axmed Madoobana waxa uu abaabul culus oo ka bilaabay magaalada Nairobi kulamo kala duwan oo halkaas uu ka wado warar dheer ayaan idinkaga heenaa iyo kuwa kale oo xasaasi ayaan idiin soo gudbin doonaa soo dhawaada saaxiibayaal warbaahinta Soomaaliyeed idiin soo gudbinaysa wararkii ugu dambeeyay arrimaha Soomaalida iyo caalamka wararkeena waxaan maanta ku bilaabaynaa warar kale xiriira howlgalada culus ee la soo warinayay inay ka dhaceen degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellada Dhexe ee duqeymaha halkaas laga fuliyay faahfaahin dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay duqeymo culus oo xalay ka dhacay gudaha degmada Aadan Yabaal iyo deegaano hoos yimaado gobolka Shabeellada Dhexe ee Soomaaliya duqeyntan oo ahayd bartilmaameed ayaa lagu bartilmaameedsaday maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab oo ku sugnaa aaga degmada Aadan Yabaal waxaana la gaarsiiyay khasaare culus wararka ayaa sheegay in duqeynta sidoo kale lagu laayay xubnihii ugu badnaa oo maleeshiyaadka al-shabaab laguna gubay gaadiidkii ugu badnaa oo maleeshiyadu ay wadatay iyadoo xogtu ay tilmaamayso in gurmad ahaan maleeshiyaadka la duqeeyay ay kaga soo baxeen deegaan la yiraahdo Ceel Cali Axmed iyaga oo ku socday dhanka degmada Aadan Yabaal si uu xoojiyaan al-shabaabka kale halkaas ku sugan oo culays xoog leh soo saareen macuusuliyada gobolka Hiiraan sida ogaatay warbaahinta Soomaaliyeed laba gantaal ayaa la helay kolonyo ka tirsan kooxda al-shabaab oo ka soo baxay Ceel Cali Axmed waxaana gaadiidka qaar saarnaa rasaas kuwaasi oo gebi ahaanba ku basbeelay duqeyntii xalay dhacday sidoo kale wararka ayaa intaasi waxay ku sii darayaan in duleedka degmada Aadan Yabaal ay haatan ay ka socdaan dhaqdhaqaaqyo ay wadaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya kuwa macuusuliyada oo doonayo in guluf ay markaasi ku qaadaan degmadaasi si ay uga saaraan kooxda al-shabaab halkaasi jooga waxaa hadda kaabiga ku haya degmadaasi oo markaasi u dhow sida ay wararku ay sheegayaan ciidamada huwanta halkaasi joogo iyaga oo qarku saaran inay kala wareegaan xaaladda gobolka Shabeellada Dhexe gaar ahaan aaga degmada Aadan Yabaal ayaa la soo sheegayaa inay tahay mid kacsan waxaana la soo warinayay in al-shabaab ay haatan ay dareemayaan culayskii ugu xooganaa waxaana sababay dagaalada ku qabsaday gobolka Hiiraan oo lagu jabiyay kooxaha argagixisada ah dagaaladii ugu dambeeyay ee ka dhacay xadka Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe ayaa waxaa axadii shalay ahayd lagu laayay ku dhawaad 100 shabaab ah sida ay sheegtay dowladda dhexe ee Soomaaliya qoraal kooban oo ka soo baxay dowladda ayaa lagu yiri geesiyaasha deegaanka iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa howlgalo socday 48 saacadood waxay ku dileen 70 xubnood oo ka tirsan maleeshiyaadka kooxda al-shabaab sidoo kale cadawga waxaa laga furtay hubkii ugu badnaa ee dowladdu tiri labadii maalmood la soo dhaafay waxaa ka dhacay xadka gobolada Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan ama Soodinta labada gobol dagaalo la isku riiqmay hogaamiyihii ciidanka deegaanka ee macuusuliyada xawaadle Cabdi Gumey ayaa kamid ah geesiyaasha ku shiiday dagaaladaasi oo sidoo kale tobanaan askari ay uga dhinteen beesha xawaadle kooxda al-shabaab oo la isugu daray weeraro toos ah iska caabinta weerarada ay soo qaadaan iyo weeraro jidgal ah ayaa lagu laayay Soodinta labada gobol ee Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe waxaana hadda la soo warinayaa in ay kooxdu ay gaareen jabkii ugu cuslaa iyada oo agarka al-Kawthar iyo Aadan Yabaal isla gaaray oo xalay duqeymahaasi ay ka dhaceen haddaba aragtida ku aadan wararkaas hoos ayaad noogu reebi kartaa duqeymaha culus ee dhacay jabka la gaarsiiyay maleeshiyada al-shabaab wacdaraha ay beesha xawaadle ay ka dhigaysa furinta dagaalka warbixinada kale wararkeena waxaa kamid ah xaalka magaalada Gaalkacyo ayaa laga deerinaya iyadoo laga badan qabay in dagaal gacan ka hadal uu dhexmaro ciidamo kala taabacsan Asad Diyaano iyo sidoo kale maamulka Puntland haddaba maamulka Puntland ayaa si kulul uga digay in uu adeegsan doono taangiyo iyo madaafiic si uu u joojiyo howlgalka ciidamada Puntland Security Force ay ka wadaan magaalada Gaalkacyo isaga oo ku eedeeyay inay sharci darro ay u fulinayaan howlgalo aan fasax aysan uga haysan dowladda hoose ee Puntland hanjabaadan ayaa waxaa jeediyay gudoomiyaha gobolka Mudug Faysal Sheekh Cali oo ku magac dheer Jifa Jabsade kadib markii BSF ee habeenno dhowr ah ay ka fuliyeen magaalada Gaalkacyo gudaheeda howlgallo oo ay goobo gaar ah ku bartilmaameedsanayaan BSF ayaana si rasmi ah
uga diiwaan gashneen hay-adaha amniga ee Puntland. BSF oo la aasaasay 2002 iyada oo taageero ka helisa Mareykanka si looga hortago argagixisada iyo burcadbadeeda ayaa si tartiib ugu noqotay cutub ciidan oo si heersare u tababaran una hubeysan uguna takhasusay la dagaalanka argagixisada iyo sirdoonka. inkastoo si rasmi ah aysan uga tirsaneen maamulka Puntland, haddana BSF ayaa sanadadii dambe waxay u dhaqmaysay si madax bannaan, taasi oo keentay khilaaf joogto ah oo soo kala dhexgala Puntland iyo markaas ciidankaasi. Daba xiisadan ayaa si toos ah cirka isku sii shirartay kadib markii Puntland si toos ah ugu eedeysay taliyaha booliiska federaalka General Asad Cismaan Cabdullaahi Diyaano oo qoys ahaan si dhow ula xiriira hoggaanka BSF in uu ka dambeeyo abaabulka ciidan ee sharci darrada ah isla markaasina ka socda gudaha Puntland. Diyaano oo horey u ahaa taliyaha BSF-ta ayaa haatan waxa uu yahay taliyaha booliiska federaalka, waxaana lagu toonsan yahay in uu gacan uu ka helayo markaasi ama uu gacan uu ku leeyahay dhaqdhaqaaqa cutubkan ciidan ee BSF ee ka wadaan Gaalkacyo. madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa u jawaabay arrintan isagoo Gaalkacyo u diray saraakiil sarsare iyo weliba ciidamo dheeraad ah si uga hortagaan waxa uu ku tilmaamay isku day lagu weeqayo ammaanka maamulka Puntland iyo amarada maamulkaasiba. haddaba isku soo wada duubay xiisada ayaa markii ugu kululeed bishii December 2021 dhex martay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni oo isku dayay inuu xilka uu ka qaado taliyaha BSF-ta Maxamuud Cismaan Diyaano. taliye Maxamuud ayaa diiday inuu xilka wareejiyo, taasoo keentay dagaallo u dhaxeeya BSF iyo ciidanka Puntland ee magaalada Boosaaso, halkaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan 10 qof, tiro kaleetana ay ku dhaawacmeen. dhacdooyinka noocan oo kale ayaa sababay xaalad adag oo ay gashay markaasi dagaalka gobolka, iyada oo dhinacyaduna ay halkaasi dhaqdhaqaaqyo culus ay ka fuliyeen. haddaba dhaqdhaqaaqyadan culus ee Puntland ay bilowday, Puntland ciidankii u dirtay magaalada Gaalkacyo ayaa loo arkaa inay sii horseedi karto xaaladda gobolka, iyadoo ay suuragal tahay in dagaal gacan ka hadal ah uu dhaco. waa hagaag warbixinada ugu dambeeya wararkeena haddaan noo soo qabtay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe waxa uu kulamo kala duwan ka wadaa magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya, halkaasi oo kula kulmayo mas'uuliyiin oo xildhibaan u badan. madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Madoobe oo xadii gaaray magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya ayaa halkaasi waxa uu ka bilaabay qorshe culus iyo weliba abaabul ka dhan ah dowladda dhexe ee Soomaaliya. Axmed Madoobe ayaa haatan wado kulamo xasaasi ah oo la qaadanaya dhinacyo kala duwan oo ay ka mid yihiin wakiilada beesha caalamka, xildhibaanada baarlamaanka iyo siyaasiyiinta ku sugan gudaha magaaladaasi, isagoo kala hadlaya xaaladda ka soo kordhay dalka. ujeedada weyn ee Axmed Madoobe ayaa waxa uu yahay sidii uga hortagi lahaa damaca dowladda ee ku aadan sidii meesha looga saari lahaa maamulkiisa, maadaama xiisadu halkii ugu sareysay ay gaadhay. haddaba xubnaha uu la kulmay madaxweynaha Jubbaland waxaa ka mid ah xildhibaan Cabdiqaliif Muuse Sanyare oo ka tirsan golaha shacabka, kaasi oo ah xubnaha sida weyn mucaaradku ugu ah dowladda Xasan Sheekh Maxamuud. walow maalmihii dambe ay soo baxayeen warar la xiriira in ninkan xil sare loo magacaabi doono. dhaqdhaqaaqyadu Axmed Madoobe uu ka wada Kenya ayaa ku soo aadayay iyadoo haatan khilaafka u dhexeeya Kismaayo iyo Muqdisho uu u yeeshay weji cusub, waxaana la wadaa qorsho la dareemayo in dowladda Soomaaliya ay dareensan tahay isla markaasina daneynayso oo gobolka Gado ay dhaqdhaqaaq ay ka bilowday, kaasi oo ka dhan ah Axmed Madoobe.